arrinta gudoomiyaha xisbiga ahna musharraxuna hore uga hadlay imikana waan ku celinaynaa arrintaasi waxa weeye gobolada barigu hore waxa uga jirtay abaar baahsan oo aan gobolada kale Soomaaliland la qabin waxyaabaha imika aadka ay ula tacaalayaan waxa kamid ah jadeecada iyo nafaqa darrada imikana waxa ugu darsamay shuban biyood waxaan leenahay gobolada bariga ee imika qayladhaanta ugu badan ay ka soo yeedhiso gobolka Togdheer caasimadiisa Burco waxaan leenahay arrinta degdeg waxa looga qabto xildhibaanadii golaha deegaankan xalay daawanayay arrintaas waa arrin qaran weeye waa in tallaabo degdega xaalad degdega waa in la galaa waxaad moodaa xukuumadeenu inaanay waliba ciidii shaqada gaarka ah lahayd ugu horeeyay wasiirka caafimaadku dhaqdhaqaaqoodu aad buu yar yahay aad baa loo tabayaa gobolka looga tabayaa arrintan waa arrin qaran waxa weeye caasimadii baynu arkaynaa sida looga qaylinayo miyigiina maxaa u malayn doontaa dadka miyiga ee aan helin iyagu awoodda codkooda aynu ku maqallo ma garanaysaa jooga miyiga iyagana warkoodaba ma hayna caasimadii baynu arkaynaa in laga qaylinayo cisbitaalkii Burco waxaan leenahay arrintaas waa arrin qaran weeye waxyaabahan soo jeedinayna ka xisbi ahaan waxa weeye in loo diido fursad u bahalkaasi ku faafo fursad in loo diido in la karantiimeeyo la sameeyo dadka uu hayo ma garanaysaa xaaladoodana si fiican loola socdo iyagana la karantiimeeyo isu socodka laftigiisa in la yareeyo ama la joojiyo oo aanu ma garanaysaa si aanu u faafin in biyo nadiif ah iyo cunto nadiif ah in dadka degdeg loo siiyo oo loogu daro biyaha kulariin cid aan kulariinta helayna ay biyaha iska kariyaan dabeed markay fariisiyaan ay cabaan talaabooyinka xukuumadda aanu soo jeedinayno iyagana waxa kow ka ah in heegan la geliyo dhaqaatiirteena dalka iyo cisbitaaladaba in heegan la geliyo hay'adaha caalamiga ah ee ku shaqada leh caafimaadka inay ka shaqeeyaan iyagana xalay waxaan arkay qolo carabo ka shaqeynaysay hay'adihii kale ma arkayn xukuumadda waxaan leeyahay inuu wasiirku soo fariisiyay oo degdeg xaalad degdeg la galay ahayd iyo hay'adaha maxalliga ah ee ka shaqeeya ma garanaysaa caafimaadka ka shaqeeya dawladda hoose Burco inay soo qayliyaan maaha iyaga loo baahan yahay inay wax ka qabtaan hoos shaqadani waxa weeye waa shaqo qaran iyaga kow ka caafimaadka sanitation iyaga kow ka in dawladda hoose Burco ay ka shaqeyso in jaamacadaha siiba kulliyadaha khaaska ah ee ardayda jaamacadaha siiba kulliyadaha bartay caafimaadku in iyagana heegan la geliyo oo ay arrinta degdeg wax looga qabto marka waxaan leenahay arrintaas waa arrin qarankan ma garanaysaa intii yarayday nagu hadhay ee abaarta ka soo doogtayna haddii aan wax laga qaban oo aan si degdeg wax looga qaban jeex dhan naga duminaysa waxaan leeyahay arrinta ha loo kaco wasiirka caafimaadku dhexdaha xidhabaan leenahay iyo cid kale ee ay khusayso siba xanaanooyinka dhaqaatiirta cisbitaalada dhammaan in Soomaaliland oo dhan ay maaragtay heegan ka gashay arrinka weeye arrinkaas arrin la yareysan kara maaha wax yaro mayna rabo inuu ka hadalaa oo inuu isku dhaliilaa wax yaro mayna rabo inuu isku dhaliilaa laakiin arrintani waa arrin qaran caasimadii gobolka Togdheer ee Burco oo codkooda iyaga aynu maqlayno miyigiina hadalkeeda badaa dadkii miyiga ahaa hadalkeeda daa'imka waxa la sheegayay in cisbitaaladii ay buuxsameen intii yareeyay ani awoodooda ay ka badatay oo dadkii guryaha la geeyay waxaan leenahay arrintaas waa arrin qaran xukuumaddu heegan ha geliso iyo guddida abaaraha iyo xukuumadduba arrinta il dheer ha ku eegto wax kale yaan laga shaqeynin qoladan kulmiye ee campaign-ka ka wada ee ma garanaysaa magaalada Hargeysa campaign-keeda ku dawaqiyana waxaan leenahay war idinka taladii gacanta ku haya ma ogidin gudoomiyaha xalay toolo waan dhaliilay sidoo hadlayay gudoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi waxa weeye practical bay arrintan u baahanta in ma garanaysaa axsaab iyo qaran ba aynu midowno arrinta ayaa loo baahan yahay marka intaasan ugu baaqaynaa ka xisbi ahaan horta ilaahun baa inay ilaashanayay quality-giina iyo capacity-ga aynu leenahay inaynu
masiibada qaran aynu kaga hortagnaa aad bay u hooseysaa bal waxaaban xitaa mas'uuliyiinta xilalka inoo haya badankoodu inaanay fahamsanin baaba laga yaaba shuban biyoodka inay u haystaan malaa wax yaroo fududoo sida hargabkoo kala waa dabargoyn shuban biyoodku hadduu inagu sii faafana waxa weeye jiiladan baa la waayay waxaan leenahay mas'uuliyiinta ay khusayso waad arkaysaa waa run annaga de maayarka xigeenka xisbiga cid ka soo baxay xalay baanu kala hadlin arrintaa in maayarka iyo golihiisa deegaanka iyo ay ka shaqeeyaan waanu soo jeedinaynaa in heegan loo galo arrinka oo dhugmo dheer loo yeesho oo ma garanaysaa dadka inta qabana la karantimeeyo caafimaadkoodana la ilaaliyo dawo iyo wixii ay u baahan yihiin cuntaaba in la ilaaliyo ayay u baahan yihiin marka dawladda hoose ee Hargeysa iyo isbitaalka Hargeysa iyo dhammaan reer Soomaaliland in heegan galaan baa loo baahan yahay wasiiradeena waxa kale ku mashquulsan reer hebelkeen lagu mashquuliyay iyo reerkiina keen waxaan leeyahay joojiyo waxa aynu gurmadno dadkeena dhibaatadu hayso ma garanaysaa inoo baahan maanta waa maalintii dadkeenu inoo baahnaayeen waa maalinteen dhawaqooda aynu dhageysanayna weeye waxaan leenahay gudida abaaraha wixii ay xitaa imaka hayaan emergency-ga lagu galabaan leeyahay arrinta qaran aynu ma garanaysaa sidii aynu u badbaadin lahayn shacbigeena masiibada qaran inaynu ka hortagnaa loo baahan yahay madaxweynahana waxaan leeyahay madaxweyne arrinta heegan gali cid kasto ay khusayso aynu arrinka gacmaha isu qabsano sidaynu uga hortagnahay